kulan wacan daawadayaal waxaan ahay Salma Xaaji Maxamed kuna soo dhawaada barnaamijka wajiyada baraha bulshada oo aad ka daawan doontaan SBTV xaruntiisa Muqdisho. barnaamijka waxaa maanta marti noogu ah Baaquli Boy oo baraha bulshada aad caan uga ah laguna xasuusto waxyaabo fara badan. ugu horeyn Baaquli Boy kusoo dhawaada SBTV gaar ahaan barnaamijka wajiyada baraha bulshada. walaashay waan ku dhawahay adina ku salaamaya shaqaalaha SBTV waan salaamaya waan idinka mahad celinaa markaan jaaniskan quruxda badan markaad aad u mahadsan tahay. su'aasha ugu horeysa hadaan u guda galo waa kuma Baaquli Boy. Baaquli Boy waa Baaquli Boy narta magacayga saddexan ka bilaabay Liiba Maxamed Yaasiin la dhahaa kuma dheer Baaquli Boy ku dhashay Muqdisho ku barbaaray Muqdisho ku wax barata Muqdisho ahna reer Muqdisho. Baaquli Boy dadka adigoo caan ku barteen wax ma noogu sheegi kartaa noloshaadii hore ee heerkaaga waxbarashada? wallahi waa iska kooban tahay aniga dugsiga waxaan u baxay Maxamed Xarbi aan u baxay dugsi dhexe waxaan u baxay iskool Salaaxudiin aan u baxay dugsi sare Imaam Shaafici qaybtiisa kaas Balaar aan u baxay wax kale markaa waxbarashada jaahir jaamacad laakiin maan sii gaarin footballer iska noqday macnaha ciyaartooyda markaa wadanka ciyaaraysan ka mid noqday SITT daalan ciyaaray kadibna safar Ethiopia iska galay waa oo nolosheeda waa iska sida dadka adigoo caan ku barteen ma noo sheegi kartaa markaa ku soo biirtay social media? wallahi walaashay social media intaad ku biirto aad wax sameyn doontaa lagu daawan doonaa isma leeyin waxa boqoraal rabbi ahaayeen laakiin inta badan waxay u dhiirigeliyay wiil la yiraahdo saaxiibkii Maxamed Carab la yiraahdo u dhiirigeliyay adi 19 dhamaadkiisna yaan jeclahay marka social media jecel u qabto ma soo gashay? subhanallah social media waxa la jeclaado ma laakiin maroo qaraad isku dhex taagana arkay wiligayba hadda tan kaga sheekay waa dhaliyaabeysa YouTube waxa la yiraahdo maqli jiro iska daawan jiray waxa macquul dadka Asianka iska daawan jiray laakiin YouTube inta video laga doo waa YouTube dhaxtay waxa iga suurtagelin ahaan jirtay dadka ma faleeyina dhigi jiray adoon kadib waxa kamid ah rijaal saaxiibkay asagana waa salaamaya macallinkii Jay Axmed Hel asagana waa salaamaya rijaal ama gadan fikir waxa kan YouTuber hadaan noqon ka waran wallahi waxaan ku iri YouTuber ma noqon karnaa magaalada naga badane ana ma toolana waa ahay mugti hadda waa iska dhaafay waxa ka biidiida marka hore waxa xishood aan dadka xishoonay dartiis kadib ilaa qadarina YouTuber iska noqdo dadka ay bartaan ilaa qadaray waa kan hadda anigu hor taaganay subhanallah social media la qaatayna bajaaj waa iska dhib badan tahay horta mar qaar waxa ku soo raacay tuuga ku soo raacay rabo inuu lacagtaada guriyeeyo iska daa adina asleeda ninkan $2 ka qaad xaalada adag waa mootoole wallahi oo ku shaqeey mar qaar hadda waan ka naxaa horta nin dhalinyaro Soomaaliya dhinto aad aan u naxaa laakiin nin bajaaj la diiday markii aad ay taabataa way xaaladaha ku shaqeeyaan ka warqaba inuu familka soo tagan ka warqaba waxa macquul inuu jaamici yahan ka warqaba oo inuu inta wax bartay haddana noloshaas shaqadaas adag oo raali u sagay haddana waxa lagu sii daraa dhibaato waa la sii marina waa ka xumaada bajaajlayaasha aad iyo aad markaa weli kuma jirto qofku caan inuu noqdo wax fudud maahan adiga waxyaabo oo caannimada ay kugu reebtay ama saameyn ay kugu yeelatay ma jirtaa? waxay u reebaysaa hadda dhow isbartay weli catal soo dhaweynaa la yiri qarjuruufa nafta laga qaadi gaare dhalinyarada Soomaaliyeed ama dadka Soomaaliyeed waxaas wax iska caadi waa inuu inta ku yimaado ku feero asaga baashaal u arkaa macnaha ama ku dharbaaxshay baashaal agtiis ka taa Baaquli Boy maanta dharbaaxshal soo dhacay agtiis macnaha wax miisaankii wax yar ay ka tahay macnaha haddana saasay taa waa asaga qaataa mar qaar xataa tusaale ina eraygaas xataa baraha bulshada aan dhawaale qarjuruufta xataa wax badan ay keentay ina meel badan inta taga qofka uu hamiibay inuu qarjuruuftabo macnaha anaa ku dhiirigeliyay marka hadaan dhawaale qarjuruufta la igu dil gaaray wuxuu ka sii qaado qofkiiba inuu markuu arko qarjuruufto hadda ayaan nabad garoona tagay nimanka ay soo safta arka oo Baaquli ay ku kala kacinayna amal marka eraygaas taa baraha bulshada oo isticmaalay anoo qarjuruuf dhibaatadaas la mariyay hadda iska aamusla wax macnaa ma sameeyeen laakiin marka baraha bulshada timaado wali dhibaateed tira dadku ay ku sii dhiirigelin marka dhiirigelin oo sii noqon inay dib u sii dhibaateeyaan barangiga kugu saameynta badnaa wax ma nooga sheegi kartaa? wallahi dadkan aan ku hormaraa rido kale saameyn ku yeeshay macnaha qof dhan macwiisan wata qof aan leeyahay caawi macwiisa ga dhicirto qofkan waa iska dhilay moogta aqoon ku mala inuu ku caawiyo isku day markuu rido qabsado oo telefoon la soo baxan leeyahay eedamadeena Adeer Xuseen hore u soo kaxayso ridada bakaara la sii galoyahay mootraxta ana soo tuurahay soo dhaqsada aan leeyahay kaas oo kale dadka saameyn ku yeeshay marka ark rido aad u falceliyaan laakiin ana wax saameyn u yeeshay waxa kamid ah qof dhalinyaro oo jid maray aan leeyahay ma sha Allah assalaamu alaykum wa alaykum salaam
niyo hambali dhahan lahay caawa caruus baan ahay marka qofka iska daacad waaya hambali uu leeyahay laakiin hal dhib ay haystaan leeyahay islaanta sudoodeeda ugu mashquulsana arkaa oo aan arkay dhaas gabadheeda nin fool xunaa soo guursatay mar ceebtaada la astur macnaha niyo caawa si aan lagu mashquulin niyo adaa iga fool xunay malxiis ii noqon dhahay marka dhalinyarada siday u necab yihiin foolxumada oo ka turjumaa marka way caynayaan kaas aanay saameyn gooni ugu leh caanimada maxaa ka dhexshay markii laga soo tago inaa magac samaysay caanimada wallahi caanimada faa'iido waa leedahay khasaarana waa leedahay weli Soomaali markaa joogto khasaaradeeda badan laakiin ardul caalam markaa joogto faa'iidadeeda badan wax khasaara ma walaabo hadda Soomaali horaan kugu sheegay tusaale markuu meel kugu arko qaar inay markaa inta badan horta way ku qadarinayaan laakiin dhalinyarada Soomaaliyeed inuu wax ku geysto dhib ku geysto macnaha u arkaa ma ku dhino faa'iido u arkaa Soomaali markaa joogto khasaaradeeda badan xaqiiqdii dadku waa idin qaranaya dad qof inta fadhiyo arkay khasaaro badan oo ku qaba wuxuu ku leeyahay faa'iidan ku qaba waana beentiis xamar markaa joogto khasaaradeeda badan faa'iidadeedu waa yartaa 20% markay noqoto 80% khasaaradeeda badan wallaahi in hebelo lagu dhaamaan horta wax kale oo dhaafsan ma jirto caanimada xaaladda ka waran in lagu dhaho laakiin khasaaradeeda badan maadaama aan ku dhahay in la yareeyo adagtaa khasaaradeeda waayo wadanka 75% dhalinyaro waaye marmar qaar markii oo banooni ama garoon ay ku arkaan ay ku soo shumuumsamaan ama ay isu ka yimaadaan oo jamaaca ay soo noqdaan inay gacan kula tagaan isku dayayaan macnaha dhan kale ma fiirna inuu intuu walaalkii qaaliga waa ku taageeraa al sawir oo kula galo waa iska yartahay macnaha fahant horta laakiin in badan waa laga gudbaa islahay insha Allah haddii lagu dadaalo oo dadka la wacyi geliyo maxaa kula muuqanaysaa dhaqan xumada ka socota TikTok aad ahaan waxaa jirta xaflad aan tagay beri dhaweyd TikToker niman TikTokero ay sameysanaayeen gabdho horta maqli jirta koox hebel way ahaat maqli jirta serbi aad TikTok tan ka socoto inay dawladda soo farageliso maane waxaad arkaysaa dumarka waxaa ugu liita weli kuwaan 25 sano ilaa iyo 40 sano u dhexeeya ugu liita gabdhihi yar ayaa ka daray mana laga baniyo qofkii falowga wuxuu ku siinaa in gabadha oo dawadeeda ama jirkeeda wax kamid ay soo bandhigto inuu wax ku siimaana si kale wax kuuma siinaa commentina inta badan aqriyaan beenku mashaa TikTok markaan dhex joogo gabadhan waxay aaminaysaa inaad saas samaysid maana cawrada banaanka ay keentid ma si kale magac ku sameey karto malaha marka ana waxaan dheelahaa dadkan in dawladda gacan ay soo geliso maane si kale ee meeshan wax ku noqon karto ma jirto maalin waa ka sii darantaa walaal wataciya u dun waa ayir dhagti war maqashaan waana qaadato horta qof warkaaga aan ku socon marka moogtahay wax oo marka saameyn aan ku yeelan karto ama isbedel ma jirto qaal Allah ta'ala qaal rasuulullah qofka memoryadii ku duuban tahay telefoonadii ku duuban tahay dhinac walba loo dhigay haddana wax ma maqlaayaan ma fahanto horta qofka bil adeegsigiisa hadii la yiraahdo qofka waxaas lagu arkaa ganax 500 ama 200 ama $1,000 laga qaadaa Soomaalida haddana markii la joogo qofka jeebkiisa aad oo markaa ma aragtay haddaad ganax jeebka ka xanuunjisid wuu dareemaa wax badan wuu dareemaa in dawladda hal jida u furan oo meeshaan baraha bulshada waa la isweydiinaa meeshaan dumar way ku halaabeen rag badan ku haleeyay inta badan dumarka waxa soo banaan bixi ragga soo banaan bixi been alla caayay birine marka meeshu istaagto waxay arkaysaa Janice ku furan adiga macnaha yaa ka xigay isleedahay waa jiraan gabdho dhowr oo magacyo si qurux badan ku sameeyay way jiraan laakiin waxa ka badan inta magacyada foolxumada ku sameysay wala anaga waxaan ka galna malaha isleeyahay ilaa iyo dawladda maahane qofka lagu arkaa in la ganaxo xabsi loo diro wallahi 10 sano lagu ganaxo dhilaa 20 sano lagu ganaxo waa dhaqanka waa la bedelay si u socod 5 sano kadib waxa sameeyay doonaan jidkay u sabrantaa laakiin macnaha ma ka hor hadlay dhanka cuntada iyo nooca jecesha ama dalban lahayd aniga wallahi bil aadan wuxuu cuno xoolaha xayawaan maan bil aadan wuxuu cuno waa cunaani maanta wax walba adii keento ku dhahay waxaan macuni kariim ku dhahay wax walba raashin Soomaali waa cunaa dhanka sports markii la aado waa ognahay in dhanka sports ku fiican tahay kooxdee taageertaa dalka iyo dibadda ana laba koox adii saddex koox dhig karaabo laba koox ayaan dheeray ana koo jeeyaa taageera LLB jeeyaa taageera wana ka salaama ciyaartooyda iyo macallimiinta iyo maamulka salaama Yurubna Real Madrid bisan ka taageera Arsenal isoo labeys Real Madrid aad jeclaa marka dheeris aan daawada wax kale ma daawadabo Arsenal aydan mar isku ku xadaa sidee isku tii jecelka ama wiliga am kugu dhacay jecel oo gabar qurux badan ma jeclaatay
wallahi horta qofku yiraa oo jacayl uma dhicin waxaan u maleynaa qofkaas been uu sheegaan u maleynaa waa wax nolosha markaa ma aragtay horta muhiim u ah hore way u dhacay laakiin kadibna markaa iskuma nadayin laakiin calaf gabar uu igey waa jirta hadda aan qabo oo ayadana jacayl aan ku guursaday laakiin hasaabaa dumarka wax badan waa laga wanaagsan yahay waxaa macquul haddaan kulano inaan meesha isgoosyada xamar iyo aan kula aado iyo bajaajladeeda aan kula aadaa macquula iyo blka inaan kaaga sheekeeyaa macquula laakiin si kale may. fariinta ugu dambeysa oo nala wadaagaysa maxay tahay? okay waxaan ku baaqaynaa waxaan leeyahay haleys cafiyo horta wadankan waa leys dulmiyo ruma hartaa mise been haleys cafiyo wixii qabiilna waa laga koray adduunyada qabiil waa laga koray anaga weli waxaan taaganahay reer hebel aan taaganahay ina adeerkay aan taaganahay warwaagi wax badan waa nagu baryay markaan dhanka kale wanaagga aan ka war doonaa leeyahay insha allah abdullahi saasaan ku baaqi lahay. intaasi ayaan kusoo afmeelaynaa barnaamijka wajiyada baraha bulshada ee aad ka daawaneyseen SB TV xaruntiisa Muqdisho.